سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibada qiimaha badan loo kusoo dhowaada koorsada html oon si taxana uga baahino kanaalkan. waxaynu qaadan doonaa casharkii 15aad ee taxanaha kooraskan inagoo ku baran doona 3 taag oo kala ah html radio button, html checking tag iyo option tag. haddaynu ku laabano html radio button waxay tahay iyo shaqadeeduba. radio button waxaa loo adeegsadaa qayb ka mid ah foomka, taas oo dooradsiisa qofka isdiiwaan gelinaya nooca gender ee uu yahay. tusaale, gmail markaad samaysanayso waxyaabaha lagu weydiinayo waxaa ka mid ah female iyo male ka tahay, sidoo kalena aanad wada dooran karin labada option iyo haddii intaa kasii badan yihiinba. check tag isna shaqadiisu waxa weeye in aad dooran karto in ka badan hal elementi, kuwaas oo lagu aqbalayo marka aad doorato. halka radio button-ka hal mid uun lagu ogolaa. tagga kale option waxay isku shaqo yihiin radio button, waxaad koox eraya ama nambaraad ka dooranaysaa hal mid oo kaliya. waxaana loo isticmaalaa furaha wadamada sida Soomaaliya oo kale. marka 252 ayaa lagu soo galaa lambarka. furayaashaas oo kale ayaa loo isticmaalaa. dhammaantood waynu wada arkaynaa oo itus oo itaabsi baynu mid walba u samayn doonaa. waxaynu soo furanaynaa editinka Notepad++ si aynu ugu samayno. waxaynu joognaa hadda editorka Notepad++, khaasatan page-kii aynu kusoo samaynay casharadii hore sida 14aad oo aynu kusoo baranay qaabka loo soo geliyo HTML sawir. inta sawiraanta ayaan marka hore iska saaraynaa si aynu ugu samayno radio button-ka iyo labada option ee kale. tagiskan radio button, checking tag iyo option tag dhammaantood waxa ay ku dhex qormayaan foomka dhexdiisa. marka kaygan horeba waan iskaga dhex qoran karaa. haddeer waxaan furanayaa anigu foom cusub. kan baan anigu ka furanayaa form hoos baan u degayaa. halkan baan kasoo xidhayaa form. labadan form ayara kala durkiyo. formkaasi waa casharka hore. marka halkan waxaan leeyahay h3 waxaan ku dhex qorayaa dooro nooca gender aad tahay. okay, intaa markaan qoro waxaan soo xidhayaa h3 waliba slash banka ilaa xagga dambe aniga ku daray. halkan waxaan qorayaa hadda radio button baan bilaabayaa koodiskiisii. input kadib waan baxayaa space tape baan leeyahay ku dhex qor equal double quotation radio bayn leenahay. radio waynu baxaynaa. waxaan leenahay name magaca equal double quotation ka waxaynu ku qoraynaa gender waynu baxaynaa equal haddana double quotation waxaynu leenahay male intaynu xayndaabka ka soo baxnay ayaynu haddana halkan qoraynaa male. br baynu kusoo xidhaynaa br. inta baynu copy garaysanaynaa maadaama waxaynu bedelaynaa ay tahay female iyo male oo kaliya. control c hoos baan u degayaa control v. mar kale aan paste gareeyo control v. halkan male waxaan ka dhigayaa female. halkan waan baabiinayaa iyana sidoo kale female. halkan waxaan ka dhigayaa others sidaasi lamid ah. halkan others aynu tijaabino. browserkeenu kusoo kicin doonaa.
male iyo female iyo others saddexdiiba waa kuwan. Marka mid ka waynu dooranay male ay ku qoran tahay. Haddaynu female doorano waxa meeshii laga qaadayaa tigtii aynu dooranay markii hore male. Markaa taas waxay ku muujinaysaa in la ogol yahay hal mid inaad doorato. Marka website-yadu sidaas ayay uga faa'iideystaan radio button. Radio button aynu ka gudubno checking tag isna aynu ku laabano page-kii. Halkan ayaan hoos u degayaa. Marka waxaan leeyahay br breaker row noo samee. Halkan waxaan ka furaynaa h3 iyana h3 waxaan ku dhex qoraynaa dooro maadooyinka aad rabto. Okay, waxaanu soo xidhaynaa h3 br tan meesha aynu ka qaadno control c xaggan baynu geynaynaa ku habboon control v. Okay, hadda waxaynu bilaabaynaa iyana checking tag. waxaan leenahay input type equal level quotation. waxaynu ku dhex qoraynaa check box. waxaynu ka yara baxaynaa. waxaynu leenahay name equal level quotation. waxaynu ku dhex qoraynaa maadada Soomaali baan leenahay. ka baxaynaa halkan baynu ku qoraynaa iyana Soomaali. soo xidhaynaa br oo breaker row. markaynu intaa qabano waynu copy gareysanaynaa intanba gebi ahaan. hoos baynu tegaynaa waynu ku paste gareynaynaa control v. sidoo kale control v ilaa 5 baynu gaarsiinaynaa. waayahay halkan maadada baan bedelayaa. waxaan leeyahay science maadis Arabi tarbiyad control s waynu save garaynay. waxaynu browserkii kusoo kicino. hoos baynu degaynaa. halkan waxaynu u jeednaa inay maadooyinkii aynu soo gelinay Soomaali, Science, Maths, Arabi iyo tarbiyad inay noo soo galeen. waxaynu awood u leenahay inaynu dhowr maado aynu dooran karno ama gebi ahaanba inta maado meesha yaallaba aynu dooran karno. kadibna aynu sida log in ku dhihi karno oo laynoo gudbinayo qaybta website-ka ee laga helayo maadooyinkan. inagu haddeer waxa maynaan kusoo xidhin. inagu tusaale un baynu uga jeednay. waayahay qaybta xigta ayaynu u gudbaynaa ee ah optionska inaan ku laabano page-ka. halkan waxaan leeyahay br hoos baan u degayaa. ina waxaan leenahay halkan baan ka furayaa h3 dooro furaha wadankaaga. okay, halkan h3 waynu ka soo xidhaynaa. h3 hoos baynu u degaynaa. waxaan leenahay select. halkana waxaan ka soo xidhaynaa select. markaa optionska baynu ku dhex qoraynaa. halkan waxaan ka furaynaa option. okay, halkan furihii baynu qoraynaa plus. waxaan leenahay 252. haddana option baynu soo xidhaynaa. inta baynu copy gareysano maadaama waa inta la bedelaya qoraalka dhexa uu yahay control v ilaa 5 baynu gaarsiinaynaa. halkan waxaan leenahay 0
halkan waxaan leenahay 25, halkan waxaan leenahay 35, halkan waxaan leenahay 200 oo buur ah. Okay, halkan waxaynu ku sii daraynaa input, okay, tape equal double quotation, waxa lagu dhex qorayaa waxa uu noqonayaa number, okay, placeholder. Si dadku u gartaan waxa meeshan lagu qorayo placeholder ahaan, waxaynu u gelinaynaa lambar tusaale ah. waxay leenahay placeholderka hala mid noqdo lambar baynu qoraynaa 063, lambarkana hash baynu soo gaabinaynaa. Okay, intaa marka aynu qorno waxay leenahay control s, waxaynu ku soo kicin doonaa browserka, hoos baynu degaynaa iyana. halkan waxaynu ku aragnaa fallaar yar ay ka samaysantay, taas oo tilmaamaysa inay waxyaabo kale kusii hoos jiraan, oo haddaynu ku dhufano lambaradii aynu gelinay ay soo bixi doonaan. Okay, intii lambar oo kuwa soo baxay markaa, taana waxaan filayaa inaynu isla fahanay. halkan baad imanaysaa, lambarkii ayaad qoraysaa. Okay, placeholder ahaan buu ahaa kii hore ku jiray, marka haddaad ku dhufato iska tegaya lambarkaasi, haddaynu baabi'inana uu soo laabanaya. Okay, taana waynu isla fahanay. waxaan ka tegay oo aan ku dari lahaa halkan inaynu raacino button. waxaa HTML-ka ka mid ah button tag loo yaqaano oo aad weliba u muhiim ah. input baan leenahay tape equal double quotation button. Okay, waxaan leenahay magaciisu wuxuu noqonayaa name button. halkan waxaynu leenahay magaca soo muuqanaya isaguna muxuu noqonayaa value equal double quotation. waxaynu ka dhigaynaaba buttonkaasi shaqada uu qabanayo baad halkan ku tilmaamaysa. marka waxaan leeyahay log in ayuu ka shaqeynayaa, log in markaan qoro waxaan leeyahay br breaker row samee br control s, aynu ku laabano browserkii oo soo kicino. Okay, maxaa inagu soo biiray log in, isaguna waa button la isticmaalo oo aad iyo aad muhiim u ah. isagana button saas ayaa loo isticmaalaa. casharkeenii maanta oo 3 taag ku saabsanaa intan ayaynu kusoo gabagabeynaynaa tan iyo casharka xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.